galab wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada Saydabo Media waxa hadda ku suganahay boosteejada tareenada ee Liège Gulam oo kamid ah boosteejooyinka ugu quruxda badan uguna mashquulka badan dalka Belgiumka maanta waxaan bilaabayaa safar gaaban waxaana u socdaalayaa labada xad ee ay wadaagaan Holland iyo Belgiumka ujeedadu waa inaan halkaas ka soo diyaariyo vlog gaaban oo aan idinku tusayo sida ay xadkaasi u eegyahay dhaqdhaqaaqa dadka iyo isdhexgalka ka muuqda labada dhinac la soco safarkayga boosteejada tareenada ee Maastricht waxay ku taalaa magaalada Maastricht ee gobolka Limburg koonfurta Netherland waa saldhigga ugu weyn magaalada wuxuuna ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee tareenada maraan gobolka waxa boosteejadan laga raacaa tareeno gudaha iyo dibadda u kala goosha shirkadda NS waxay ka shaqeysaa intercity-ga ka yimaada magaalada Alkmaar ilaa uu ku dhamaado saldhiggan sidoo kale shirkadda Arriva waxay bixisaa tareeno maxalli ah halka shirkadda NMBS ee Belgiumka ay bixiso adeegyo caalami ah oo u kala goosha Netherland iyo Belgiumka webiga Maas oo Faransiis lagu dhaho Meuse waa webi weyn oo dhexmara magaalada Maastricht wuxuuna qayb muhiim ka yahay taariikhda iyo nolosha magaalada wuxuuna magaalada u kala qaybiyaa laba dhinac oo isu xira buundooyin taariikhi ah webigan wuxuu ka yimaadaa Faransiiska wuxuuna sii maraa Belgiumka ka hor intuusan soo gaarin Netherland dhererkiisu waa qiyaastii 925 kilomitir haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto like saar asxaabtaadna la wadaag waad mahadsan tahay Irani dawe
gargaar